السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan noo bilaabanayaa koorsadana Python basic casharkeena koowaad. Anigoo ah Axmed Muuse, soo dhawaada mar kale. Get starting with Python. Python ayaan bilaabaynaa. Intaan Python baran ama waxyaabahaas dhan aan ka hadalo, waxaan maqlaynaa Python inay tahay Python programming language inay tahay. Waa maxay programming language? Iyo sababtee aan programming language u barayno? Inaan programming language barno maxay tahay? Waa su'aal muhiim ah. Markaan barayno su-aasha saa uga jawaabno, barashada programmingka waxa ay dhisaysaa oo qaab strong ah iyo si adag ay u dhisaysaa barashada programmingka. Waxaa loo yaqaana problem solving, inaan xalino mushkilado, inaan xalino dhammaan programmada. Sababta loo keenay waxay tahay in ay xaliyaan dhibaato, inay xaliyaan ayaa loo keenay programming languageska. Marka programming daa maqasho waxay tahay in problem la xaliyo waa teknolojiyada maanta waxyaabaha isticmaalo dhan waxay ka yimaadeen problem taagan oo la xaliyay. Marka waxaan baraynaa sida problem loo xaliyo, hadaan barayna programming language. Sidoo kale logically fikir ahaan inaan dhisno, sidoo kale analytical skills inaan barano xirfado analytic ah, kuwaasoo marka ujeedka u barana waxay tahay inaan access gareyno oo aan helno high paying jobs, shaqooyinka aadka u sarsareeya, mushaaraadka badan lagu bixiyo, kuwaasoo marka flexible career, xirfado oo flexible ah, kuwaasoo marka laga dhex heli karo money industries, marka warshado badan ama shirkado badan oo dunida ka mid ah laga heli karo fursado badan ayagoo u baahan yahay marka Python si marka problem loo xaliyo ayadoo loo marayo hab logic ah, waxyaabahaas oo dhan markaas. Saas marka waxaan u baraynaa marka programming. Sababta nagu riixaysa waxay tahay programming inaan barno, reasonska aan u barayna programming waxay tahay qodobkooda waxay tahay in aan sare u qaadno xirfadeena, sidoo kale inaan helno high income, dakhli fara badan inaan helno, sidoo kale waxay tahay in aan yeelano xirfad damaanad leh oo strong demand in tech. Marka suuqa teknolojiyada inaan ka helno xirfad damaanad leh inaan ka helno, saas marka u baranaa programming. Waxaan kaloo programming u baraynaa in creativity-geena aan sare u qaadno, sidoo kale inaan dhisno website, inaan dhisno anagoo barayna xirfadaha web development-ga. Sidoo kale programming waxaan u baranaa inaan dhisno app development-ga, AI tools, waxyaabahaas oo dhan marka waxay ku xiran yihiin programming language ayay ku xiran yihiin haddaad rabtid inaad baratid. Saas ayaa u baraynaa programming. Sidoo kale programming waxaan u baraynaa inay tahay flexibility, mid marka dabacsan, sidoo kale inay leedahay remote work, inaad gurigaaga aad kasoo shaqey kartid, goobtaada shaqo, waddan kale aad u shaqey kartid, fursadahaas inay leedahay. Marka waxaan oo dhan marka la isku geegeeyo ayaa waxaan rabnaa inaan barano programming language. Marka ujeedka programming aan u barayno waa sidaas markaas. Python waxay kamid tahay marka programming languageska ay kamid tahay. Waxaa jira markaa top popular programming languages ayaa jira. Maadaama programming aan barayno waxaa jira programming languages badan, midkeeba marka aan uga habboon inaan barano. Aniga hadda koorsadeen waxaa waa Python. Sababta Python ku doornay ayaan ka dhex arki doonaa. Halkan waxaa noogu sawiran dhammaan top 10ska 10ka programming ee hadda ugu caansan caalamka, waxaana kaalinta koowaad ku jirta Python. Saasaana Python ku dooran inaan barano. Marka mid kasta aragna waxay tahay si aan u fahanno programmingka guud, conceptiga programming languageska. Python ayaa ugu horeysa. Python waa luqad programming ah, taasoo marka ah easy to read waaye, luqad si sahlan loo aqrin karo, sidoo kale loona baran karo. taas marka Python sababta aan ku doorano waa taas. Sidoo kale waxay tahay waa luqad widely used waaye, luqad aad oo loo isticmaalo dhanka data science-ka, loo isticmaalo dhanka automationska, loo isticmaalo dhanka AI loo isticmaalo dhanka web development loo isticmaalo. Waa luqad meelo badan loo isticmaalo, si ballaaran loogu isticmaalo. luqadda labaad Java ayaa la dhahaa. Java waa strongly structured language waaye, waa luqad aad structure adag leh, kuwaasoo loo isticmaalo large systemada waaweyn loo isticmaalo, sida Android operating systemka Android loo yaqaan, ama Android apps. Dhammaan application Androidska waxay ku dhisan yihiin Java. Marka Java marka waa luqad enterprise ah oo softwareda enterprise software, waxaa la softwareda waaweyn ee shirkadaha ayaa lagu dhisaa markaas. Marka haddaad rabtid inaad shirkad waaweyn u shaqaysid, u dhistid, Java ayaa la baran karaa. walow hadda Python ay suuq aad u haysato, Javana waa luqad powerful programming ah. Sidoo kale waxaa jira JavaScript, dad badanaa waa isu qaldaan markuu programming ku cusub yahay. Java iyo JavaScript waa isu qaldaan, labadooda waxay kaliya wadaagaan magaca ugu horeeya. Marka JavaScript laba luqad oo kala madax bannaan oo shaqeeyo shaqo isku lahayn waa. JavaScript marka waxay ayadana essential u tahay, laf dhabar u tahay
ama laga maarmaan u tahay dhanka web development-ga haddaad rabtid inaad web development baratid haddaad javascript aqoonin web development-ga wax badan baa ka dhiman waxaa loo isticmaalaa in lagu dhiso interactive website-ka dhan qaab u muuqanayo qaab u shaqeynayo javascript ayaa lagu dhisaa sidoo kale web applicationska ayaa lagu dhisaa javascript waa luqad markaa dhanka website-da caan ku ah marka javascript waana luqadda saddexaad ee programming languageska walow hadda mar qaar luqadda labaad ay soo gashay ee java boss ka riixato waxaa jirta luqad kaloo loo yaqaano go ama golang loo soo gaabiyo ama go la yiraahdo ama golang laga soo gaabiyey waa ayadana programming language ka mid tahay waa luqadaha hadda caanka top 10 ku jira waa simple waaye luqad fudud waaye oo haddana fast language luqada waxay kala noqon doonaan fast programming language ayaa luqada ah oo luqada degdeg badan softwareka lagu dhisaa ama websiteka lagu dhisaa ama hawsha loo diraa si degdeg usoo qabanayso ayay kamid tahay luqadahan waa fast languageska ay kamid tahay sidoo kale kuwaasoo lagu design gareeyo kuwaasoo marka lagu design gareeyo scalability-ga iyo performance-ga systemyada ayaa lagu dhisaa marka system scalability-giisa ama performance-giisa waxyaabas in la rabo in la hagaajiyo go language-ka ayaa la isticmaalaa sida waxa loo yaqaana cloud serviceska la xiriira serviceyada waxyaabaha softwareda inta badan online ka saaran oo xogahooda online ku qabto ayaa loo isticmaalaa cloud service kuwa ayaa loo isticmaalaa sidoo kale weli topka noo socda programming languageska php ayaa luqadda shanaad waayan waa luqad aad iyo aad caan u ah boqolkiiba 40 luqadaha ku dhisan yihiin web development service side-ka boqolkiiba 40 ayay ka tahay luqadan boqolkiiba 40 ayay ku dhisan yihiin website-da maanta la isticmaalo sidoo kale waa luqad aad ugu isticmaal badan dhanka website-dada service side marka website laga hadlayo wuxuu leeyahay front side ama client side iyo service side client waxaa la waxa qofka uu arkayo userka uu isticmaalayo service side waxaa la waxa soo jawaabayo oo xogta database waxyaaba isku xiraayo luqadan service side ayaa aad ugu ballaaran luqad caan waaye dhanka website-da lagu sameeyaa iyo content management-ga sida school management-ga systemyada management system-ka oo dhan ay caan ku tahay luqadan lagu dhisaa luqadda ku xigta waxaa la lixaad C++ ayaa la dhahaa C++ ka waa C programming language-ka ay ka imaatay oo la hormariyey waa powerful waa luqad awood badan waa aadana fast waliba speed aad u sareeya waa programming fast-ga ayaa lagu dhisaa sida gaming-ka game development ayaa loo isticmaala maadaama gameska ay aad u speed badan yihiin system softwareska waa lagu dhisaa operating systemka sida hadda window shirkadda Microsoft waxay ku dhisan tahay C++ ayay ku dhisan tahay operating system ayaa lagu dhisaa dhammaan marka website-dada ama barnaamijyada ee Microsoft la dhan waxay ku dhisan yihiin C++. luqadda kale waxaa la Ruby ayaa la waa beginner friendly waayo syntax qaabka syntaxkeeda hab qoraalkeeda waa qaab beginner friendly dadka beginnerka aad ayaa loola taliyay inay bartaan ayna Ruby-gan waa common waxaa loo isticmaalaa ayana web development ayaa loo isticmaalaa waa luqad u dhiganta JavaScript iyo PHP-gan ayana waxaa loo isticmaalaa web development ayaa loo isticmaalaa ayadoo la adeegsanaya Ruby Rails kuwa la dhahayo ayadoo la adeegsanaya web development loo adeegsanaya marka sumadeedana waa kuwaas calaamadaas ay leedahay oo lagu yaqaano luqadda sideed waxaa la C# ayaa la lahaa C# waxaa loo isticmaalaa luqadda ayana sida ay ka mid tahay Microsoft ayaa aad u isticmaasho waxayna ku dhistaa window applicationska oo Microsoft dhan hadda aan isticmaalayno waxay ku dhisan yihiin C# ayay ku dhisan yihiin marka sida game development xataa waa lagu dhisaa ayadoo la adeegsanayo marka unit oo ah ugu caansan gameka lagu dhiso ayaa C# ka adeegsada enterprise software loo adeegsada software waaweyn sida Microsoft Office-ka oo kale waxyaabahaas oo dhan waxaa lagu dhisaa C# ayaa lagu dhisaa marka inta badan shirkadda Microsoft ayaa aad u adeegsata shirkadahaas ayaa adeegsada sidoo kale luqadda sagaalaad waxaa la lahaa Rust luqaddan waxay focus ka saartaa safety-ga iyo performance-ga ayaa lagu dhisaa systemyada performance-gooda iyo safety-gooda ayaa lagu dhisaa waxaana loo isticmaalaa markaas programming ahaan ayaa loo isticmaalaa system programming ayaa lagu dhisaa laftirkeeda marka Rust-ga waa soo baari kartaa marka iyo dhanka security ahaanta amni ahaanta ayaa systemyada ayaa lagu dhisaa tanne iyo applicationada markaas dhanka serviceka qaabka u shaqeynaya waxyaabahaas oo dhan ayaa loo adeegsadaa markaas dhanka safety iyo performance ayaa aad luqadan u qaabilsanta marka magaceeda ka garanaysaa sidoo kale luqadda tobanaad ee ugu dambeysa waxaa la lahaa C ama SQL waxaa laga soo gaabiyey structure query language ayaa laga soo gaabiyey waa ayana waxay qaabilsan tahay inay xogaha kaydiso sidoo kale xogaha soo gudbiso xogaha maamusho daatada inay data kaydiso data soo gudbiso ayadoo database kasoo qaadaysa markaas marka luqadan database waa database programming language waaye luqadaha database-ka ayaa loo isticmaala waxay essential u tahay datada iyo sidoo kale waxay tahay back end doorka back endiga ayay qaybtan
weyn ka qaada haddaa maqasho qofkan backend developer waxaa waa luqadaha SQL iyo database waxyaabahaas uu yaqaanaa marka database dhan in la barto marka si aad u noqoto marka programmer luqadaha mid kamid ayaa dooranaysaa anaga hadda waxaa dooranay Python maadaama ay tahay luqad dabacsan modern ah oo aad caan u ah markaas ayadaa marka kaalinta koowaad ku jirto saas ayaa u baraynaa marka keliya haddaa Python baratid luqadaha kale way kaaga filan tahay sidoo kale haddaa rabtid luqad laba inaad ku jirtid waxaa fiican JavaScript inaad ku jirtid iyo sidoo kale markaad software engineer noqotid inaad ku jirtid Rustiga SQL-ka kuwaas inaad ku jirtid marka Python waa number 1 markaas saas ayaa ku dooranay marka waxaa u guda gelaynaa marka maadaama Python anaga aan dooranay waa maxay Python marka what is Python marka Python marka la qeexaayo Python is a popular way oo luqad caan waaye sidoo kale open source ah object oriented ah high level ah sidoo kale general purpose programming language intaas oo dhan maxay marka mid u sharaxayna open source popular waxaa laga wadaa luqad caan ah open source maxaa laga wadaa marka open source waxaa laga wadaa waa it's free waa Python waa free waa wax lacag ah ka wali Python lagama siinaayo oo inaa iibsatay lagama baahno waa available waaye waa heli kartaa markaste si aad improvement wax ugu sameysid shirkadaha qaar Python-ka ayay improvement ku sameeyaan si shaqadooda ugu qabsadaan laftirka haddaa Python si fiican u baratid horumarin ayaa Python-ka waxbaa kusii darsan kartaa Python open source waa sidoo kale object oriented waaye luqadan Python luqadaha waxay kala baxaan object oriented sidoo kale wax la dhaho iyo sidoo kale function waa marka luqadan object oriented waaye luqadaha object oriented kamid tahay si JavaScript-ga waa based object oriented bay ku base garaysan tahay not function waxyaabahan gadaal ku arki doonaa uubka sidoo kale waa object wax la isticmaashaa kuwaas oo la qeexaya marka attribute iyo methods wax la hayo ayaa la qeexaa waxaas oo dhan gadaal ku arki doonaa luqadan ay ku dhisan tahay waa korkeeda sidoo kale high level waa luqada marka la hayo waa human readability waaye ama human friendly waaye dadka marka qofka isticmaalayo ay aad saaxiib ula tahay oo qofka ayaa baran karo oo fahmi kara waa halkii marka computerka ay saaxiib la noqon lahayd marka waxaa laga wadaa marka meeshan computerka wuxuu fahmaa waxa loo yaqaan binary language ama binary digits waxa loo 0 and 1 kaliya ayuu fahmaa computerka halka anaga aan fahno luqada caadiga human friendly ama human readability aan fahno si aad Englishka meesha ku qoran oo kale anaga waa akhri karnaa waa fahmi karnaa wuxuu yahay saas oo kale markaas laakiin computerka ma fahma waxaan wuxuu dhigsan yahay waxa loo yaqaan binary 0 and 1 waxa loo arki doonaa ayuu ku dhisan yahay marka sidaas darteed marka luqada marka high level maadaama ay tahay dhankeena ayay u soo janjeertay anaga ay aad u fahmi karno computerkana waa loo turjumayaa markaas marka maaha wax oo sida luqada computerka kula hadlayo maaha oo 0 and 1 ah waa luqad sida caadiga ah aad ku fahmaysid luqadana laga fiiriyaa high level inay tahay inay open source tahay inay object oriented waxyaalaha luqada la dooranayo ayaa laga fiiriyaa sidoo kale luqadan waa general purpose waxaa laga wadaa waxaa loo isticmaalaa in aad ku sameysid any kind of program nooc kasta oo programming kala duwan ah ayay qaabilsan hal shay bis ma qaabilsano sida website bis in lagu sameeyo ma qaabilsano laakiin waxay qaabilsan meelo kala duwan ayay qaabilsan luqadan markaas waxyaabo kala duwan operating system kala duwan nidaamka kala duwan ayay ka shaqeynaysaa oo hal meel mu xirno luqadan marka intaas isku tagtay ayaa waxay ka dhigaysaa qeexitaanka Python waana sababta anaga ku dooranayna marka inay tahay mid caan ah open source ah object oriented high level ah general purpose marka mid kasta waa sharaxna wuxuu yahay marka inaa fahamtaan rajaynaya qeexitaanka Python kaas ugu soo gudbinaa Python marka waxaa arkaynaa marka historygeeda marka Python yaa ikhtiraaqay oo soo saaray ninkan marka uu horeysay Python waxaa sameeyey ninkan loo yaqaano Guido van Rossum waa nin hadda kuley hadda inuu nool yahay rajaynaya hadda YouTube ka bilisid waa nin xogaa daayar nin odaya maaha waa nin oo dadka odayaalka dhexe ah YouTube uu leeyahay waa geli kartaa YouTube-kiisa programming Python waxyaaba badan ka hadla website ayuu leeyahay oo ku sharaxaya Python kasi u shaqeeya historygiisa dhan ay ka ogaa kartaa marka magaciisa raadi markaas in aragtaa rajaynaya ninka soo eegaya sidoo kale fast release marka uu horeysay Python lasoo saaro waxay ku sagaal koodii in historygan aadaysid maadaama Python aad baranayso hadhow wax waa laga weydiin karaa inaad marun soo aragtay isku day Python sidoo kale waxaa ku naqaanaa inay tahay mid easy ah oo fudud barashadeeda sababtoo tahay waa human friendly hore u sheegnay markaas waa luqad marka dadka saaxiib la ay fahmi karaan syntaxkeeda marka syntax waxaa laga wadaa habka loo qoro programming ayaa loo yaqaan syntax programming kasta hadaa maqasho syntax ayuu leeyahay syntaxyada inta badan way ka sameyn yihiin si macno ahaan laakiin qaabka u qoran yihiin ayay ku kala duwan yihiin oo kaliya sidoo kale waxay tahay it's easy waaye luqad fudud waaye in la qoro koodkeeda aad mu adka complex maase luqadaha qaar sida Java iyo C# ama C++ aad ay complex u yihiin laakiin Python waa easy waa hab qoraalkeeda markaas sidoo kale akhrinteeda in koodka Python la akhriyo way fudud tahay
keliya haddaa syntaxka aa fahamtid sidoo kale debug waxaa laga wadaa qaladaadka ka dhex dhaca errorska dhacaya waxaa loo yaqaanaa programmingka debugging ayaa loo yaqaanaa debuggeeda waa ayadana mid la fahmi karo oo fudud oo markaas bixinteeda iyo si wax u qaldayin iyo cilada dhacday si fudud ayuu kugu sharaxaya marka intaasoo dhan waxay tahay marka Python maxay tahay sababta ku dooranay iyo historygeeda sidoo kale waxay tahay Python inaad baratid uma baahnid inaad baratid sidoo kale computer hardware inaad qalabyada computerka u shaqeeyaan aad fahantid memoryga inaad baratid zero and ones oo ah programmingka ama computerka wuxuu luqadda u fahmo wax ku shaqeeya inaad fahantid waxyaabas dhan muhiim ah Python saa u baratid ugu dambeyn marka casharkeenan waxaan kusoo koobinaa why sababta aan u baranayno Python sababta u baranayno maxay tahay Python sababta u baranayno waxay tahay Python waa programming language oo luqad waaye oo programming ah luqad programming waxaa laga wadaa waa luqad programming markaa maqashid waa turjumaan waa translator luqad waa lagu hadlaa luqadaas waxaan kula hadlaynaa computerka kula hadlaynaa computerka ma fahmaayo anaga waxa aan usoo dirayno ama aan fahmayna asiga ma fahmaayo maadaama luqad kale oo gooni oo zero awanis luqadiisa anagana ma fahmi karno oo ma aqri karno xisaabay ku dhisan tahay marka programmingka marka saa computer kula hadli lahayn waa luqad aad computer kula hadli lahayn shaqada arno iyo programka arno aa ugu sheegi lahayn kadib oo noogu qaban lahaa marka maadaama ay tahay Python marka waxay aad u eg tahay luqadahan oo inta noogu sawiran luqadda loo yaqaano Perl oo luqadan waa dinosaur ku sawiran yahay luqadda C programming oo hooyada programming language da maqasho waa C waa sidoo kale qofka software engineerka inta wuxuu bartaa sida haddaa software engineer weyn inaa noqdo C inaa soo fiirisid waa Pythonka ay aad u shabahdaa waa luqadii lagu sameeyey Pythonka oo laga soo gaagaabiyo waa sidii oo la gaagaabiyo waa Pythonka direct Java luqadda Javada marka saddexdaas ayaa Pythonka aad u shabahdaa shaqo ahaan iyo functionality ahaan laakiin si kasta ha ahaatee way ka duwan tahay markaas qeexitaankeeda iyo sidoo kale shaqada ay luqad ahaan luqadaas kale ay kala dhexeeyo way ka duwan tahay markaas waa luqad ka duwan markaas luqadan Java la tanna Python tanna C tanna Perl ayaa la sababta u baranay Python waxay tahay horta waa easy waa to learn dhowr mar ku socdaalin waa mid fudud barashadeeda xagga beginnerska dadka beginnerka maanta programming language inay soo galaan rabo Python ayaa lagu la taliyay inay ka bilaabaan saas darteed ayaa koorsada marka Python ugu soo qaadanay sidoo kale waxay tahay in la fahmo in la isticmaalo waxay tahay su'aalaha kale ayadoo la isticmaalayo luqadda Python waxay u dhigantahay sida adigoo English ku qoraayo ama akhrinayo oo kale markaas syntaxkeeda markaas grammarka syntax waxaa la lahaa grammarka programmingka u degsan la syntax xeerarka u degsan marka koorsada waxaa ku baran doonaa syntaxka Python loo qoro waxyaabahaas dhan baran doonaa sidoo kale Python intaas kaliya kuma koobneen Python waa very powerful waa luqad programming ah oo aad iyo aad u awood badan waaye oo flexible ah markaas oo dabacsan weliba oo flexibility leh waa markaas oo meelo kala duwan loo isticmaali karo sidoo kale Python waxay intaa kuma sii ekay Pythonka waa large community waaye waa sababta kaalinta koowaad ee programmingka ugu jirto waxay tahay communityga dadka Python ku tiirsan oo bulshada ayaa aad u badan maadaama bulshada luqadan bulsho badan ay leedahay baahideeda waa badnaan doontaa oo shirkadaha iyo meelaha loogu shaqayn doono way badnaanayaan markaas sidoo kale cilad bixinteeda waxyaabahaas oo kale haddii errors ku qabsado community badan oo kaaga horreeyay qaladaadkaas ayaa jira sidoo kale waxaa jira library fara badan ay leedahay marka large ayaa leedahay ama money libraries library waxaa laga wadaa program hore loo diyaariyey oo keliya u wacanaysta halkii inaad baran lahayd intaa qori lahayd waxyaabahaas dhan kaaga bixi lahaa waa library hore loo diyaariyey shaqada kuu qabanaya keliya waa u wacanaysaa keliya import waxa la jirto waa soo import garanaysaa kadib markaas way adeegsanaysaa marka adoo millions code oo qoray ay u dhigantaa marka halkaas mar ay import samayso marka waxyaaba Pythonka ay caan ku tahay waa library fara badan waa arki doona marka library ugu caansan ee Python ay leedahay marka casharkeena koowaad halkan ayaa kusoo gabagabeynaya next casharkeena